kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada warbixinteena aan ku eegayno madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo si kulul uga hadlay markii ugu horeysay dagaalka ka soconaya wadanka Ukraine. Laakiin daawade aan ku ogeysiye halka aad naga daawanaysana waa tubta wararka. Madaxweynaha dalka Ruushka Mr. Vladimir Putin oo ay ciidamadiisu weerar ku qaadeen 24 bishii February ee sanadkan aan ku jirno 2022 ayaa inta badan ka aamusayay xaaladaha iyo markaasi dhaleecaynta loo jeedinayo xoogaga qaranka Moscow ee markaa Ukraine ku duulay. Qaarkood waxaa loo jeedinayaa eedeymo ka dhana xuquuqda insaanka iyo sidoo kale magaalooyinka ay joogaan oo ay gobod fadle ka geysteen intuba. Laakiin wasaaradda gaashaandhigga ee wadanka Ruushka waxaasoo dhan inkastoo ay eedahaasi aad u diideysay, haddana madaxweyne Putin ma aha nin hadal badan oo weedhir madaxda reer galbeedka iyo Mareykanka ka soo yeertaaba degdeg ugu jawaaba. waxaana hadaladiisu inta badan uu diiradda ku saaraa in shacabka Russia uu ku qanciyo isla markaana gudaha dalkiisa muujido siyaasadeed oo kaga furun uu markaa ku dejiyo. waxa uuna had iyo jeeraale isku dayaa in markaa weerarada ama hadafku uu leeyahay gaaro. waana markii ugu horeysay oo si toos ah oo uga hadlo dagaalka ka soconaya dalka Ukraine. Putin ayaa yiri wadahadaladii Ukraine iyo Russia u dhaxeeyay waa ay dhamaadeen, waqtigoodana waa uu dhacay, waa ay expire oo ma shaqeynayaan sababtoo oo ah waxaan horeyba u ogeyn inaanay marnaba qaadan karin dowladda Ruushka waxa loo yaqaano gardarada bareerka ah ee ka imaanaysa dhinaca iyo reer galbeedka, ayuu yiri madaxweyne Vladimir Putin. dhinaca kale Putin ayaa ballan qaaday in Ruushka uu guuleysan doono madaxweyne Putin ayaa ballan qaaday in Ruushka uu ku guuleysan doono dhammaan ujeedooyinkiisa dagaalka sharafta leh. waa markii ugu horeysay oo madaxweyne Putin dagaalka ka soconaya gudaha dalka Ukraine oo dalal badan oo caalamku ku yaala u arkaan mid nasiib daro ah, isla markaana gardaro huwan isaguna uu ku sheego in uu yahay dagaal aad u sharaf badan. waxa uu Putin u arkaa dhiigga Ukraine ku daadanaya in uu yahay mid lagu soo celinayo sharaftii iyo cizigii shacabka Russia iyo wixii beri loo yaqiinay midowgii Soviet, oo haatan madaxweyne Putin uu doonayo in mar kale uu isku keeno si markaas uu ugu muuqdo quwad xoog leh oo aan la luuday karin. dhinaca kalena Mr. Putin waxa uu sheegay in haddii qofku uu doonayaa in guul uu gaaro ay markaasi ku xiran tahay marka hore in uu huro waxa isagu ku qaali ah. sidaa daraadeed ayuu Putin carabkiisa ku sheegay dagaalka sharafta leh ee ka soconaya dalka Ukraine. weedhan oo aan hubo in ka badan 40 milyan ee reer Ukraine si weyn ay uga caroodeen. laakiin dhinaca kale waxaa jirta in madaxweynaha dalka Ruushka Mr. Vladimir Putin uu mar kale diyaaradaha dagaalka iyo xoogaga qaranka ee gebi ahaanba ka dagaalamaya dalka Ukraine inta badan taatikadii hore ay bedeleen oo ay xaaladda sidii hore aanay ahayn. Ukraine isaga oo ka hadlayay Putin waxa uu yiri waxaan isticmaalaynaa dhammaan waxa aan awoodno, waxaan yareynaynaa khasaaraha iyada oo mar walbana hadafku uu yahay in aan guusha ka keeno colaadda iyo markaa gardarada aan ka dhiidhinay ee markaa naga soo wajahday deriskeena Ukraine, ayuu yiri. taas oo in muddo ah soo jiitamaysay. cadowga reer galbeedka ah iyo kuwa la shaqeeya waxay isku dayayeen in Russia ay cunuqabateen ku soo rogaan si shacabka Russia loo iqaabo. waxa ay moodayaan in cunuqabateenadooda aan ku jabayno amaba aan ku baaba'ayno. malahaygu waxaan u malaynayaa taasi inay ka dhigan tahay been iyo propaganda ama qof maalin cad riyooday weliba isaga oo soo jeeda ayuu u dhignaa hadal uu sheegay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, iyada oo khudbadaasina si toos ah markaa looga soo tabinayay telefishinka qaranka dalka Ukraine, telefishinka dalka Russia.
waa markii ugu horeysay oo Mr. Putin oo wejigiisa laga dheexe karay in farxadii ay ka muuqatay goob fagaaraha uu kaga hadlay dagaalka markii ugu horeysay tan iyo dagaalka 49 maalin ka soconaya wadanka Ukraine. hadda waxa uu sheegay in ciidamadiisu ay ka soo baxeen waqooyiga dalka Ukraine, si gaar ah eriyada magaalada caasimadu ah dalka Ukraine ee Kiev la yiraahdo. laakiin Putin waxa uu sheegay in xaaladda Ukraine hadda ka jirta ay tahay mid musiibo ah, waxaana ugu yeeray hoggaanka dalka Ukraine kuwa nasiib daran oo aanay shacabkoodu garanayn halka ay danta shacabkoodu ku jirto. waxa uu sheegay in Ruushka marar badan isku dayay in xaaladda la dejiyo Ukraine ay ku noolaato cizi iyo sharaf, iyada oo Ruushku uu horey u ballan qaaday in Ukraine u difaaci doono. laakiin wax walba waxa isbedeleen markii dalkii hore nooga mid ahaan jiray ee Midowgii Soviyeeti uu cadowga noo soo kaashaday. waxay isku dayayaan in bambaanooyin halis ah ay xuduudaheena ku aasaan. sidaa daraadeed dowladda Ruushka waa ay soo jeedaa oo waxaan idin sheegayaa inaanay ka gaban doonin difaaca dalkeena iyo dadkeena, ayuu u dhignaa hadal uu jeediyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. waxaana uu hadalkaas ula jeedaa dalka Ukraine marka uu leeyahay dalkii hore nooga mid ahaan jiray, iyada oo madaxda Ukraine weli ay sheegayaan in ciidamadooda ay guulo hor le gaarayaan. laakiin maadaama furmaha dagaalku ay hadda wax badan iska bedeleen, Russia ayaa u muuqata in mar kale ay xoogageeda soo laba kacaleeyeen oo ay doonayso jaha isku mid ah inta dagaalka ay ka soo qaado in si wacan ay gacanta uga dhigto dhulkii ay horey uga baxday iyo guud ahaan wadanka Ukraine. khubarada dhinaca siyaasadda iyo dagaalada ka faallooda ayaa sheegaya in dagaalka Ukraine uu daba dheeraan doono. sida muuqata dowladda Ruushkana waxa iyadana isku diyaarinaysaa sidii gebi ahaanba ay u burburin lahayd ciidamada dowladda Ukraine. haatan xogaga dalka Ukraine waxa ay meelaha qaar u joogaan si qarsoodi ah. dagaalka ay kaga soo horjeedaan xukuumadda Ruushkuna waa mid intiisa badan ku saabsan ku dhufo ka dhaqaaq, walow meelaha qaar dagaalo aad u qaraar isaga hor yimaadaan ciidamada Ruushka iyo kuwa markaa dalka Ukraine. dhinaca kale Mr. Putin oo si hadlaya ayaa yiri hawsheenu waa in aan fulino oo aan gaarno hadafkeena ama yoolka aan leenahay dhammaan iyadoo aan la kala reebaynin, sida ay horeyba u dejiyeen khubaradeena siyaasadda iyo sidoo kaleeto militariga dalkeena. waxaana u dhaqmi doonaa ayuu yidhi si qaafiyad leh, degan, sida uu dhigayo qorshaha ay markaas soo jeediyeen amniga dadka noo qaabilsan iyo guud ahaan muwaadiniinta dalka Ruushka, ayuu yidhi madaxweyne Putin oo hadlayay. Putin inta badan colaadda ka jirta dalka Ukraine inkastoo uusan si toosa uga hadlaynin, haddana waxaad moodaa in maalmihii lasoo dhaafay culays dhinaca siyaasadda ee gudaha dalkaas uu kaga furnaa hogaamiyaha 30 sano maamulaya dalka Russia. Putin waxaa lagu hantaa inuu yahay nin aad u caqli badan isla markaana garanaya tallaabooyinka uu qaadayo iyo waxa ka dhalan kara. inkastoo dagaalka Ukraine uu ku qaaday la wariyo inaanay noqon sidii uu wax u filayay, haddana lama filayo Putin in si degdeg ah uga baxo wadanka Ukraine. hadda ciidamada dowladda Ruushka waxa ay gacanta ku hayaan wax ka badan 40 guud ahaan boqolkiiba dalka Ukraine. inkastoo dagaalada ay weli soconayaan, haddana waxaad moodaa in Ruushka hadda wax badan uu bedelay. waa macquul in bilaha soo socda madaxweyne Putin uu gebi ahaanba gacanta ku dhigo wadanka Ukraine. daawade adigu maxay kula tahay in xaaladda dalka Ukraine ay ku dambeyn doonto? waad ku mahadsan tahay aragtidaada.